idan alle waxaan halkan idinku soo gudbinayaa dhalinyarada maanta joogta especially Somaliland joogta dhalinyarada Somaliland runtii waxaan oran karaa waa dhalinyaro jooga waqtigii wax qabsan lahaayeen waa dhalinyaro jooga waqtigii ay wax noqon lahaayeen waa dhalinyaro jooga waqtigii ay wadankooda dhisan lahaayeen maansadu idan alle waxay u hadlaysaa bal hadda dhalinyaradaas maanta 30 jirada 40 jirada 20 jirada 25 jirada iyo wixii ka yar iyo wixii ka weynba ah maxaa keenay waqtigii ay joogtay inay wadankooda wax ka qabsadaan ama wax ka noqdaan ama wax weeyaan loo baahnaa inay barkood tahriibo barkood ay mukhadaraad bartaan barkood ay jahwareeraan oo wax weeyaan waxaan aragoo maqal ay ku riyoodaan waxaan aaminsanahay waa wax ay u sababeen ama ay uga mas'uul yihiin abayaashood markaan leeyahay ma abayaashood iyaga dhalay waa abayaasha mas'uuliyiinta ah waa kuwa xilka noo haya waa kuwa xildhibaanada noo ah waa kuwa cadaalad darrada 15 sano ku fadhiya waa kuwa hadda 10 sano dhow madaxtooyada fadhiya waa kuwa kala badan oo iyaguna saasoo kale goobo shaqo iyo goobo ganacsi ba dhalinyarada waqtiga ay meelaha iyagu shaqada ka helayaan ka fadhiya mihi gabadh dhaliilaysa dhulkeeda ama ka sii socota ama wax kale ku doorsanaysa manayhi gabadh idan alle wax ay ku bedelato ama ay kaga tagto wadankeeda ay ku jirto laakiin waxaan ahay ilmo la hadlaya waalidkiisa ilmo la hadlaya hoggaankiisa qof la hadlaya qofkii uu doortay mas'uulka ka ahaa waxaan leeyahay 1960 ku xarkiisa dhalinyaro muuqaal duubaya ama hadlaya ama la wareysanayo ku oranaya 1960 ka sheekeynaya anu kamariya maahan 1960 ma jirin Soomaali midowday maan ogeyn markii midoobeen maan joogin markii dawladdu dhisnayd maan jirin markii dambe ay burburtay wixii ku burburtay iyo burburkeedii maan jirin kaliya waxaan ku dhashay Somaliland meel la yiraahdo waxaan dhashay iyadoo nabada waxaan dhashay iyadoo jirta waxaan dhashay iyadoo dawlad leh oo wax weeyaan maamul leh oo kala dambeyn leh oo sharciyo leh waan ku dhex koray waxaan ku dhex bartay haddana waan ku qanacsanaa ilaahay idinkii waan ku qanacsanaa anigoo ku qanacsan ayaa waxaan marka walba niyadeyda haddana ku soo dhacda oo mar walba dadka dhagahooda hadalkooda dhagahay ku soo dhacaya waxa kamid ah Somaliland waxa weeyaan goonistaaggeed waa muqaddis iyo koonfur ama aan idhaahdo dawladda Soomaaliya iyaduna goonistaaga Somaliland waxa weeyaan ma jiree midnimo Soomaali weyn waxaan doonay erayga midnimo Soomaali weyn meesha uu jiro iyo goorta uu jiri jiray waxaan soo ogaaday Soomaali mid inaysan weligeed badhicin waayo calanka buluuga ee 5 xidigood leh wuxuu ka hadlayaa oo uu ka turjumayaa 5 Soomaaliyeed 5 Soomaaliyeedna weligood sumay iman Djibouti umay iman Somaliland Djibouti Somaliland dawlad deegaanka iyo NFD weli sumay iman oo calan ma yeelan markii horena Somaliland waxa ay dawladii koowaad ee qaadata calanka markii labaadna waxay noqotay dawladii inta iyadu midnimada qaaday xamar oo la tagtay markii dambana kala soo noqotay waxaan waayay midnimada Soomaali weyn la sheegaa waqtiga ay jirtay inaysan jirinba waxaan ogaay inay laba gobol u isu tageen kadibna kala boodeen oo kala noqdeen haddaba anigu kamariya ma ahan anigoo waxa soo dhanba marka laga yimaado Somaliland gudaheeda ka hadlaya waan aaminsanahay Somaliland inay jirto laakiin waxaan hayaa dhaliil aan u gudbinayo aabayaashayada maamulka ah ee haya xilalka haya ee mas'uuliyiinta ah ee aan dooranay waxaan ka hadlayaa shakhsiyadayda jasanuga aabay dhalay aabahay uu soo halgamay mujaahid buu ahaa sarkaal boolis oo ciidamada booliska buu ahaa CID buu ahaa hadda uu jiifaa 11 sano sariir saaray wali nin sarkaal ama nin ciidan ama nin dawladda ama nin mas'uul intuu dul yimi sidoo yahay xitaa yidin ma jiro markaa Somaliland horta anigu waxaan ka arkay iga dhadhanto garan maayo bal hadda anigu anoo iska waramaya matalayna dhalinyarada ila facaa ila midka ee jahawareeray markaan jahawareeray dawladeedii iyo dadkaygii gacan qaban waayaan waxa weeyaan aan meelan ku tiirsado waayo in meelo shisheeye la iga soo gacan haadiyo ama halay fangareeyo ama halay tahriibiyo ama halay isbeerbaaraysto halay iibsado wax walba way dhacayaan markaas waxaan oranayaa waxaan leeyahay maamulkaygu isaga halka ay dhigay ama mas'uuliyiintu iyaga halka ay dhigay waxaan idin noo gudagalayaa maansada idan leh gogol dhig waxaan ahay dhashii
ay dhaleen kuwii dhiigooda shubay waxaana hay dhashii ay dhaleen kuwii dhiidhiyay markii dhidar iyo dhurwaa dhulka qaybsadeen waxaana hay dhashii aan dhoomo iyo dhul israacsan iyo dawlad dhaaban arag waxaana hay dhashii sanadkii dhac iyo dhiig daadiskiyo dhuun raacsigiyo dhibaatadu baftidhi ee waqooyi dhigay inay dhinac maraan dhulka qaarka kale dhalatee timee nabad dhay ku dhammay waxaan markaa waa dhalinyaradii baan ahay anigu Somaliland waqtigay dhisantay u dhashay waxaan ahay dhashii dhaygii bilaa sanad dib uga dhacay 18 May dhoolkii la helay caana dhay ah iyo dhabeel gaari iyo aabba dhiiranba idhag dhowrayo sharaf baan dhigay kula dheefsado ceeb iyo dheg xumo weliba ima buddigin aqoon baan dhigto wax kastaan dhugto waxaan ahay dhabeel dhaqankii ku sugan hayeeshee dhib iyo waxa dhacay dheg xumo dhiirigeliyihii aabbahay dhabaad wuxuu dhiirado suugaan dhidbo qori dhabarka iyo dhinacyada sudho si uu aayo dhaba ani iigu dhigo dhulka daafacaba isagoon haldhay dheefteeda cunin ayuu cudur ku dhacay dhowr sano iyo 10 sariir dhiibsan buu dhinaciisu yaal hayeeshee dhibtiyo dheraguba arlada waa loo dhasho dhimashaa jirtee waxaan weli dhugtaa siduu dhoobadiyo dhulkan aan dulnaal dacadiidka iyo dhamacda ugu maray mar waxaan dhugtaa kuwii dheraga iyo harka dhoofka iyo dhulka kale ka yimi sida ay dhulkii intay kala dhurteen maal uu nindhaqay sida dhugufka fane ugu dhuugayeen sida ay dhulkii intay kala dhurteen maal uu nindhaqay sida dhugufka fane ugu dhuugayaan waa niman markii wadanka la xoreynayay ugu dabada ku maqnaayo dabeetana carruuroodu meel soo dhigteen wadankii markii waxa weeyaan la xoreeyay la nabadeeyay iyagoo haddana waxa weeyaan yimi oo dabeetana wixii halkii dadkii loogu talagalay iyo wixii aan anigu noqon lahaayay wixii mustaqbalkaygu noqon lahaaba iyagu cunay hadal iyo dhammaan weedhiyo dhigeed waxaan ahay dhashii raggii soo dhintee dar u dhiidhiyee dar u dhiig baxee dar u dhabar jabee dar u jiifo dhinac dhiga aabbahay maan dhigan qadiyad sharci layma dhigin ma aqaan dhulkani dheeftiisa iyo waxa weli dhex yaal ma aqaan dhowaan ubadkaan dhalee dhabarkayga jira dhaxalaan u dhigo ma dhaadani dastuur xeer layma dhigin dhulka iyo dadkana dhegta waxaan maqlaa dad loo soo dhintiyo dawlad dhaaban iyo dad islaam ku dhaqan baan ku dhaadanaa misna dhaqan xun iyo dawlad maxas dhacdiyo diin la dhaafay iyo danyar xidheelmatiyo dal tahriibay iyo dal tahriibtay iyo dayac baan dhugtaa dhudhunkayga yaal waxaan dhaadanahay oo aan cod dheer ku dhawaaqaya adduunyada dhashiyo maalkiyo dhashaa la isku dhaafsanyee kuwan dheregta iyo dhaldhalaalka iyo dhuuni qaatayee dhulka iibsadee danyar dhaawacee agoomaha dhacee ifka dhaansadee aakhiro dhigtow hadda dhaadanow qodaxdaad dhigtaa oo dhaxal u taal ubadkaad dashiyo ciribtaada dhow ama jiilka dheer maansadan dhambalay aan soo dhidbo dhuuxyada xidhee mar haddaanan dhugan Soomaali dhiman goortay dhamayd mar haddaanan dhugan dhacadiid dul iyo diif iyo dagaal wixii la isu dhigay iminkana dhacdadu dhamacdoo tagtoo shantii dhoomaqaad midba meel ka dhacay dhambalkaan jiree ku dhex noolaheen dhulka ugu jeclahay dheef kuma qabee dheragii shidmee dhididee gubtee laba dhinac ka karay dhalintuu noqdee dhalandhool fog iyo dhaqan guure iyo inaan furo dhufays lagu soo dhugtamo oo cadow idhuro dawladaan dhiseen codka dhiibayee dhabarkay hudhaay adiga idhigay daraygaa dhafaran inta aanan dhiman ee nacab idhaqan lay dhaafsan shilin urugadu idhibin dhimirkaygu tegin dawladaan dhisaay dhaliil ha u arkine hadalkaan ku dhahay waa dhawaaq ka yimi dhashaadaad digtee dhugan weydayee uu dhalay danjire qaranka u dhintoo badhu dhaawacmee xadhig dhuujiyiyo adoon jeel dhex dhigin sharci aanu dhigan uga dhigin daliil ilmahaaga dhugo waxa dhalan rogo
waxa dhalan rogo u dhayboogaho xaquuqdiisa dib maansadan maantan sameeyaydan alla xamsoowa oo waxa dhici karta in meelaha qaar ay qabsatayba waxay ka hadlaysaa just imika waxaanu arkaynaaba in ay qofkii la yiraahdo hal laba kelmadood baa imika isbartay haddii aad Soomaali weyn soo qaadqaadabaad midmiyo ka sheekayso horta waa lagu xidhaya jeel baad caga u dhiganaysaa dhalinyarada leh Soomaali weyn baanu nahay ama Soomaali weyn baanu dareeminaa ama midnimaan u hilownay horta iyaga waan dhaliilaya sababay ugu hiloobaan iyo waxay u dhadhamayso maba garanayo oo way ku khaldan yihiin dawladda intay ilmo aanay dhaqan barin oo aanay qadiyad barin oo aanay wadaniyad baran oo aanay shaqo abuur u samayn oo aanay waxba u qaban intay markuu halka maqlayso ku baraarugayso nin 20 jir ah hadlay oo yiri xamar baan doonaya isweydiin mayso sababta uu doonay isweydiin mayso waxa ka maqan markiiba inta la qabto ayuun baa jeel gunta loo dhigaya marka bal adigoon xidhin baan leeyahay alle dawladday bal arurtaada warayso waxa haya iyo waxa u baahan yihiin iyo waxa adigu qaban weeday iyo waxa ka maqan tas waxa inta markii wixii ka dambeeyana bal hadda wixii arintu ku soo dabaalasay iyaga daliilahooda aad ka hesho wixii qalbiyadooda ka hesho afkooda ka yiraahdaan oo kuur galo wax weyn sida uga qaban lahayd uga baaraan deg idan alle maansada intaasan ku soo gabagabeynaya assalamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh